إبراهيم عبد القادر ومد كمدا bulshada ku dhaqan tuulada Kuscawl ee degmada Dhagaxmadow ee gobolka Jarar ee dawladdeegaanka Soomaalida haddaba mucjisadan rabbaaniga ah inta badan ah mid aan hore loo arag kana dhacday tuulada Kuscawl ee degmada Dhagaxmadow ee gobolka Jarar Ibrahim Abdi Qaadir wuxuu dhashay isagoo ah gabadh waxayna waalidka dhalay Ibrahim ugu wanqaleen Shukriye Abdi Qaadir oo markaas ahayd abuurta Rabbi ku dhashay gabadhnimo taasi kadib Ibrahim wuxuu muddo dheer ahaa gabadh ama dumar wuxuuna magaciisu ahaa Shukriye Abdi Qaadir waxayna qaban jirtay shaqooyinka sida caadiga ah ay qabtaan dumarka Soomaaliyeed muddo kadib Ibrahim wuxuu isu bedelay ruuxaas aad aragtaan oo ah rag mucjisadani waa mid rabbaani ah aan lahayna ka sheekeen fara badan maadaama ay tahay shaqooyinka alla gaar ku ah haddaba daawadayaal waxaanu idinla wadaagaynaa xaaladihii dhacay annaga oo wareysiyo kala duwan la yeelanayna Ibrahim iyo qoyskiisa waxaanu wareysiga ku horeysiinaynaa Ibrahim wuxuuna inoo sharaxayaa geedi socodkii nololeed iyo maanta halka uu taagan yahay أنا إبراهيم عبد القادر باليلة جر شن إيه تمجر حنكو قاري ما قاعد شكري لي حنكو قاري الدمر كقبر بانها هوش الدمر قبته وحلا روح قبته وحن قبل يمين يسوي الدمر قبش قديس يوم بالغ بينهم كبعدي سبدل بقى يوجد شكل ما دورنا ويجا ورا شكل كبعدي يحلي ودرين كيمن هي صورة دي رجدي صورة دي دمر يان كسولة كبعدي عشان يتمجر كاسو دي يسبدل كيجو يمد